Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mar kale iyo kulanti wanaagsan. Usoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkani waxaan ku faahfaahin doonaa class 4ka sida loo diyaariyo su'aalaha class 4ka iyo jawaabahooda iyo shuruudaha looga baahan yahay qofka qaadanaya class 4ka. Khaasatan waxaan focus ka saari doonaa gobolkan Alberta iyo class 4ka. Mar kale iyo kusoo dhawaada channelkayga Bara Caalamka. haddaad nagu cusubtiin nagu soo biira oo like, share, subscribe, wixii commentina nagu reebay qaybta fariimaha. mahadsanidin. haddii aan ka hadalno marka ugu horeysa class 4 driving test Canada Alberta, haddaan ka hadalno su-aalaha ugu horeeya ama shuruudaha ugu waaweyn ee laisweydiiyo marka aad diyaarinayso class 4ka waa kuwa soo socda. class 4kana sidiisaba waxa weeyaan waxaa lagu diyaariyaa ama wuxuu khuseeyaa wadista taksiga, uberka iyo basaska yararka ayuu khuseeyaa wadistiisa. marka si aad u hesho waxaad u baahan tahay inaad knowledge test martid. awal waxaa jiri jirtay road test in la maro isagan sidoo kale, laakiin hadda Alberta waa laga joojiyey oo waa knowledge test keliya. markii aad diyaarinayso class 4ka waxaa jira dhowr shuruudood oo laga rabo inaad soo buuxiso si aad class 4ka aad u diyaariso. shuruuda koowaad waa inaad marka ugu horeyso aad haysataa class 5 full ahaan, GDL aan ahayn, full class 5 waad inaad haysataa. waa inaad shuruudihii kaloo laysanka lahaa oo kale inaad degaan ku ahaataa ama aad citizen ku ahaataa. shuruudaha kale caafimaad ayaa jiro. waxyaabahaas oo dhan waan dulmari doonaa. qaybta koowaad class 4ka horta sidiisaba aan dulmar ku sameyno waa maxay class 4ka. class 4ka la sheegayo waa laysan lagu wado gaariga. marka waa inaad ku wadaa gaariga uberka sida taksiyadoo kale, basaska yarar oo kale, ambulanska oo kale iyo baabuurta rakaabka qaado yarar ayaa loo isticmaalaa in lagu wado class 4ka. class 5ka waxaa loogu talagalay keliya inaad gaarigaaga aad ku wadatid adi iyo qoyskaaga aad isticmaashaan, laakiin 4ka rakaab ayaa ku qaadi karaysaa. class 4ka sidiisaba waa laysan mas-uuliyad badan xambaarsan, sababtoo ah waxaad qaadaysaa rakaab. sidaa darteed shuruudooyin badan iyo su-aalooyin badan iyo waxyaabo badan ayaa la iska kontroolaa. shuruuda koowaad class 4ka Alberta markaan ka hadlayno, gobolkan Alberta oo kale markaan ka hadlayno, si aad u hayso class 4 marka ugu horeyso sidaan hore u soo sheegay waa inaad haysataa full class 5, waa inaad haysataa oo GDL aan ahayn. tan labaad waa inaad 18 sano ka weynaataa. 18 jir waa inaad ahaataa ama aad ka weynaataa, waa inaadan ka yaraan 18 sano. inaad gudubtaa medical exam. class 4 si aad u hesho baaritaan caafimaad ayaad maraysaa, waa inaad kasoo gudubtaa baaritaankaas caafimaad. sidoo kale waxaad maraysaa knowledge test. sidii class 7 oo kale knowledge test loo marayo kale ayaa class 4ka isagana knowledge test la maraa. computerkaad fariisanaysaa, dhowr su-aalood ayaad ka jawaabaysaa. su-aalaha markaad ka jawaabto intii loo baahnaa aad gaarto ayaad guuleysanaysaa. marka knowledge testina waad maraysaa. awal waxaa jiri jirtay marka knowledge testiga aad ku guuleysato kadib wadani knowledge test ayaa la balansanayay. wadada ayaad maraysay, gaariga wadada lagu marsiinayay, highwayga, wadooyinka oo dhan ayaa lagu soo marsiinayay si lagaaga control wadistaada. laakiin hadda gobolkan Alberta waa laga joojiyey oo knowledge test keli ayaa la maraya. road test waa laga joojiyey oo wadista imtixaan laysagama qaada, keliya knowledge testiga laysaga qaadaa. waxaa kaloo jirta vision test ayaa la maraa ama aragga ayaa la iska baaraa. baaritaan aragga ayaa la maraa. araggaaga inuu wanaagsan yahay, inaad fogaansho araggaaga iyo waxaana laga kontroola. caafimaadka oo vision testa la maraa. marka haddii aad ka mid kamid ah shuruudahan ay kaa dhiman tahay waa inaad iska diyaarisaa. haddii aad qorsheynayso inaad class 4 diyaariso, shuruudahan waa inaad iska baartaa. mid kamid ah haddii kaa maqan tahay waa inaad buuxisaa si aad uga gudubtid. marka knowledge testiga aan usoo laabano. knowledge testiga waa su-aalooyin oo aad ka jawaabayso. computerkaad fariisanaysaa, dhowr su-aalo ayaad ka jawaabaysaa. imtixaanka qoraalka ama knowledge testiga loo yaqaan wuxuu ka kooban yahay su-aalooyin. su-aalahaasoo ugu badan laysku weydiinayo sharciyada wadooyinka iyo qaababka wadooyinka loo maro. iyo sidoo kale waxaa kamid ah su-aalahaasi waa maxay defense driving oo kale laisweydiiyaa, oo macnaha wadista taxadarka leh iyo ka hortaga shilalka oo kale. su-aalahaas oo kale kamid ah waxaa laisku weydiiyaa oo kale goorma ayaad hubisaa gaariga oo kale.
waa maaragtay goorta aad hubinaysa gaariga, maadaama rakaab aad qaadayso, goormaad check up ku samaysaa gaariga. Waana ka hor shaqada maalin kasta inaad gaariga hubisaa. Alcohol limitkiisa class 4ka isagu waa 0. qof alcohol maaragtay jirkiisa ku jira ma wadi karo, waa dadka caba. maxaad samaynaysaa ayaa ka mid ah su-aasha. haddii aad rakaab haddii aad rakaabku ama rakaab dhib samaynaya aad la kulanto, dad dhib badan ama foodo samaynaya haddii aad la kulanto rakaabka ay ka mid yihiin, maxaad samaynaysaa? marka jawaabtoo kale waxay noqonaysaa jooji meel ammaana. haddii aad u baahatid caawinaadna weydiiso, oo macnaha caawinaad qeybta amniga. waxaa kaloo kaa caawinaya inaad class 4 aad diyaariso, ama su-aalihiisa iyo wixii shuruudihiisa aad barato. waxaa kaa caawinaya inaad barato buugga Alberta Commercial Driving Guide la yiraahdo ayaa jira. si aad uga gudubto imtixaanka buuggan Alberta Commercial Driving Guide-ka, waa inaad akhrisataa. waa waxyaabo badan su-aalaha iyo jawaabuhu kaa saacidi doonaa. qodobka 4 road test ayuu ahaan jiray. gobolada qaar ilaa hadda road test way leeyihiin, waa la maraa markaad diyaarinayso class 4, laakiin Alberta waa laga joojiyey oo road test ma lahan. road test lama maro. marka qodobka 5 waxaan ka dhigaynaa medical exam ayaad maraysaa. waxa weeye dhakhtar ayaa kaa hubinaya caafimaadkaaga guud ahaan, aragga, wadnaha iyo caafimaadkaaga guud ayuu hubinayaa. haddii diabetic haddaad tahay oo sokor aad qabtid, iyo dhiigkar iyo heerka dhiigkarkaaga iyo waxaasoo dhan ayuu hubinayaa. ama xanuun wadnaha haddaad leedahay iyo waxyaabahaasoo kale ayaa dhakhtarka kaa hubinaya. medical screening ayaa maraysaa ama medical check up ayaad maraysaa. waxaas markaad soo dhaafto kadib ayaad maaragtay class 4kii eligible u noqonaysaa. talooyin muhiim ah marka si aad u gudubto waxaa loo baahan yahay class 4ka imtixaankiisa ama knowledge testiga. si aad u gudubto waxaa loo baahan yahay practice-ka wadista maalin kasta ah. si lamid ah isticmaal mirrorka ama shoulder check wax loo yaqaano. waa inaad aad maaragtay uga taxadirtaa shoulder check markaad gaariga maaragtay oo aad wadayso, ama xataa su-aalaha knowledge testiga way ka mid yihiin. road testing markii ay ahaan jirtayna sidoo kale way ka mid ahaayeen. shoulder check ama markii aad gaariga wadayso, ama markaad lane change samaynayso, ama markii aad aad maaragtay aad leexanayso kale. shoulder check waa inaad samayso. garbahaaga waa inaad saas u eegtaa, midig iyo bidix hadba waa inaad shoulder check samaysaa. waxyaabaha layska control ay ka mid tahay. waxyaabaha oo xitaa imtixaanaadka loogu dhaco ay ka mid tahay shoulder check la-aanta. si lamid ah stop sign-ka oo kale, marka waxaa jira meelaha stop sign-ka oo kale full stop sign ayaa la qaadanayaa. maaragtay habeenkii waa inaad maalintii aad knowledge testiga aad galayso, habeenkii hurda fiican waa inaad qaadataa. qofka dadka alcoholka isticmaal waa inay iska ilaaliyaan. waana qofka inuu self confidence la yimaadaa, oo inuu isku kalsoonaadaa, kalsooni badanna uu muujiyaa. sidaa darteed marka class 4 marka aad diyaarinayso waa inaad shuruudahan oo dhan aad soo martaa. waa inaad maaragtay buuggan oo Alberta Commercial Driving Guide-ka la yiraahdo aad soo akhrisataa. su-aalaha jawaabaha si fiican u soo akhrisataa. waa inaad hurdo fiican soo qaadataa. waa inaad taqaanaa sayniska astaamaha wadooyinka, waa inaad taqaanaa sharciyada, waa inaad taqaanaa. waa inaad muxuu ahaa aad maaragtay hurdo fiican habeenkii soo qaadataa, si aad maaragtay imtixaanka maalintiisii fresh maaragtay uga gudubtid. kalsooni badanna waa inaad muujisaa. muuqaalkan marka waxaan kusoo koobayay class 4. dad badan ayaa marka class 4 waxay markay full class 5 helaan class 4 ayay ku fikiraan. class 4 si aad u diyaarisan muuqaalkan wuu kaa saacidi doonaa. haddii aad u aragti inuu muhiim yahay ku saacideyna, subscribe, like iyo share asxaabtaadana la wadaag. mahadsanidin.